subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan warka subaxnimo warbaahinta qaran miidiya qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah ciidamada dawladda iyo macwiisleyda oo kaabiga ku haya degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe wararkii ugu dambeeyay ganacsade lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho ciidamadii la geeyay gaalkacyo oo howlgalo ka bilaabay meelo ka mid ah gobolka Mudug madaxweyne xasan sheekh oo sheegay in Mukhtaar Roobo uu ku qancin karo ugu yaraan qaar ka mid ah asxaabtiisii hore inay ka soo goostaan ururka Al-Shabaab madaxweynaha maamulka Puntland oo maanta ku soo wajahan magaalada Muqdisho iyo ujeedka safarkiisa dibaddan waxaad ku maqli doontaan diyaaradaha dagaalka Israa'iil oo duqeeyay magaalada Gaza radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com markale ismaqal wanaagsan waa axad taariikhda ku beegan 4 bisha December sanadka siidlaanaya 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada iyo inta ka faahfaahsan aan ku bilow ciidamada dawladda iyo kuwa macwiisleyda ayaa kaabiga ku haya degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe wararkan ka helino gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada aadan yabaal ee gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee macwiisleyda ay kaabiga ku hayaan degmada aadan yabaal ciidamadu hubaanta ayaa shalay qabsaday deegaano hoostaga aadan yabaal oo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay in deegaanadaasi ay isaga baxeen kadibna ay u suura gashay ciidamada dawladda inay la wareegaan ciidamada ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanada kala ah Mabaax Guulane iyo Daarusalaam waxaana wararkii ugu dambeeyay ee la helay waxay sheegayaan in ciidamadu ay doonayaan inay qabsadaan aadan yabaal oo sanado badan ay joogaan Shabaab saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dawladda iyo macwiisleyda oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa u sheegay inay saakay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay kula wareegayaan degmada aadan yabaal isla markaana ay kaabiga ku hayaan dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa inta oo sano badan waxay ku sugnaayeen degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoona halkaasi ku leh xarunta ugu weyn ee gobolka Al-Shabaab ayaa labadii bil ee la soo dhaafay laga qabsaday deegaano ku teedsan dhulka xeebta ee Shabeellaha Dhexe markaana warkii ugu dambeeyay ganacsade lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho askari ka tirsan ciidanka dawladda ayaa xalay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho ku dilay ganacsade caan ah oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Axmed oo loo yaqaanay sheekeye kaasi oo u dhintay rasaas lagu dhuftay marxuumka ayaa wuxuu xilka uu sidoo xilliga la dilay wuxuu ka soo baxay masaajid oo ku soo tukatay salaada cishaa ee xalay waxaana dad ay ku warameen in askariga dilay uu doonayay inuu ganacsadaha ka dhaco mobile watay balse uu toogasho ku dilay wararka inta waxay ku sii darayaan in askariga falka geystay uu durba ka baxsaday goobta ilaa iyo hadda lama sheegin in gacanta lagu soo dhigay askariga iyo in kale. Qaar ka mid ah qoyska Cabdiraxmaan ayaa goobta uu dilka ka dhacay ee ka qaaday meedka
deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa dhowr jeer oo horey sidan oo kale loogu dilay dad shacab ahaa iyadoona dilalkaasi ay geysteen burcad hubeysan oo dhac u geysta dadka. falalka amni darrada ayaana kusoo badanaya muddooyinkii ugu dambeeyey muqdisho iyo duleedkeeda. ciidamadii la geeyey gaalkacyo ayaa howlgallo waxay ka bilaabeen meelo ka mid ah gobolka mudug. cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo hab beeleed oo u baabulan ayaa gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyadoona ujeedka lagu sheegay inay howlgallo ay kanana ururka al-shabaab ay ka bilaabi doonaan deegaanada gobolka mudug ay kaga sugan yihiin al-shabaab. ciidamada ayaa waxaa magaalada gaalkacyo kusoo dhaweeyey madax ka tirsan maamulka galmudug iyo odayaasha dhaqanka, waxaana ay sheegeen inay soo dhaweynayaan kuna faraxsan yihiin ciidamada inay xureystaan deegaanadooda. dhanka kale saraakiisha hogaaminaysa ciidanka ayaa dhankooda sheegay inay ka go-an tahay ka xoreynta ururka al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka mudug oo ay ka mid tahay degmada xarar dheere oo al-shabaab ay ku sugan yihiin muddo 15 sana. qaybo badan oo ka mid ah gobolka mudug ayaa waxaa horey ugu dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka iyo al-shabaab iyadoona ciidamadu kuwaanta ay deegaano dhowr ahay la wareegeen. madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in mukhtaar roobow uu ku qancin karo ugu yaraan qaar ka mid ah asxaabtiisa hore inay kasoo goostaan ururka al-shabaab. madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay wasiirka diinta iyo qaabta xukuumadda soomaaliya mukhtaar roobow abuumansuur inuu ku qancin karo qaar ka mid ah asxaabtiisa hore inay kasoo goostaan ururka al-shabaab. waxaan rabaa in aan tusno hogaanka al-shabaab in haddii ay isa soo dhibaan in aan la bahdilin doonin in aan si xun loola dhaqmi doonin ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku yiri wareysi uu siiyey wargeyska caalamiga ah ee Guardian la yiraahdo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu sheegay in roobow uu habab isgaarsiineed la sameeyey xubnaha dhexdhexaadka ee al-shabaab uuna ku dhiirigelinayo inay dhinacay ku kala wareegaan. waxa uuna intaa ku daray in tani ay qayb ka tahay habka dowladiisa ay kaga hortagayso al-shabaab. mukhtaar roobow ayaa ku adkaystay in muddo dheer uu khilaafka ka dhanka fikirka kala dhexeeya madaxda al-shabaab iyo isla markaana uusan raali ka ahayn arxan darrada ay wadaan. waxaan ku khilaafay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda, waxa uu ahaa bani aadam ma ahin ayuu yiri bahlo ayuu roobow wuxuu isagana wareysi siiyey wargeyska The Guardian. markuu ka hadlayay sababta uu ugu goonsaday inuu ka mid noqdo golaha wasiirada ee Soomaaliya iyo wuxuu tusaale u soo qaatay dhibaatada al-shabaab ay ku dhawaa 15 sano dagaal kula jirto dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa maanta la sheegaya inuu ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Dani ayaa maanta waxaad ay wax lagu wada inuu safar ku yimaado caasimadda Muqdisho sida ay sheegtay ila wareediyo lagu kalsoonaan karo. ujeedka madaxweyne Dani ee Muqdisho ayaa wuxuu yahay sidii kulamo loo qaadan lahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse Barre iyo xubno kale oo ka mid ah dowladda. kulamada madaxda dowladda iyo madaxweynaha Puntland ayaa waxaa sida la sheegayo loogu wada hadli doonaa arrimo kala duwan oo ay ku aadan madmadow la sheegay inuu jiro inuu u dhaxeeyo madaxda dowladda iyo maamulka Puntland. wararka qaarkood ayaa sidoo kale sheegaya in Saciid Cabdullaahi Dani intuu ku sugan yahay Muqdisho lagu talagali doono magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka booliska dowladda Soomaaliya oo maalmahan socda in sidoo kale la filayo in lagu magacaabo. safarka degdega madaxweyne Dani ayaa ku soo beegmay xilli shalay deegaanada Puntland loo diiday wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada ee dowladda Soomaaliya Marwo Khadiija Al-Maqsuumi ilaa iyo hadda lama oga sababta keentay. markaan dhageystayaal haddii aan eegno akhbaaraadka dibadda, diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyay magaalada Gaza. diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa weeraray sidoo kale weerar waxay ku qaadeen goobo ku yaala marinka Gaza kadib markii gantaalo ay ku soo dhaceen koonfurta Israa'iil iyadoona xiisadaasi ay gaartay heer aad u kulul oo ka taagan daanta galbeed ee la haysto halkaasi oo 10 Falastiiniyiin ah ay ku dileen ciidamada Israa'iil tan iyo toddobaadkii hore. militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee saacadihii hore ee Axadda saakay ay la beegsadeen goobo lagu farsameeyo hubka iyo goodob dhulka hoostiisa mara oo ay leeyihiin Xamaas. sidoo kalena ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda gantaaladani oo lagu soo waramayo inuu yahay kii ugu horeeyay ee la rido muddo bil gudaheeda.
kaasi oo militariga Israa'iil ay sheegeen inuu ku dhacay meelo bannaan oo u dhow xeyndaabka Gaza iyo Israa'iil fidnimadii ee Sabtida isagoo aan geysan khasaare nafeed iyo mid hantiyeed toona. guddaan saaxiibyaal inta ayaa kusoo afmeeraya warkii subaxnimo oo aad ka dhageysanayseen warbaahinta qaran media anigoo Saadiq Aadan Cusmaan ayaa warka idinla soo codsiinaya saaxiibyaal intaan ku kulmeyno warkan kan xiga sidaas iyo nabadgelyo. Radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com